ahlan wasahlan daawadayaal meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka sportiga halabaad kala socotaan bartena youtube-ka ciyaaraha laate stuba iyo waliba muuqaal cusub hala meel kasta aad kala socotaan bartena maanta waxaan ku eegaynaa wararka u dambeeya ciyaaraha siba anagoo eegayno qodobada muhiimka iyo waliba koobka weyn Champions League caawa la filayay in la ciyaaro wararka ugu dambeeyo haddii aan eegno ciyaaryahan Theo Alcantara oo ku dhibaataysan kooxda kubadda cagta Liverpool taageerayaasha ayaa laga yaabaa in dib ugu soo laabtaan garoomada ugu dambeyn 2 ilaa 3 December tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal aad moodeen caladiisan heen mid wanaagsan Rafael da Silva laacibka kooxda kubadda cagta United oo caawa dib ugu soo laabanaya The Theatre of Dream goleelayaha kooxda kubadda cagta United Henderson oo laga yaabay inuu iska tago kooxda kubadda cagta United Janayo si Moha iyo waliba Erikson iyo iskola filayn lis dhaafsado iyo dabcan warar kale ayaad kala socon doontaan fardena haddaad nagu cusub tahay maatay marka horta soo booqatid subscribe noosar soo kalti helmaam gambalelka soo hesho video kastaan soo dhigno bartadaan hadda soo kalti namintahay like nagu dhireegisaan helno asxaab badan sidoo kale laacibka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Thiago Alcantara mooda inuu ku dhibaatoonayo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ciyaaryahankan ayaa ku soo biray kooxda kubadda cagta The Reds xagay kooxda kubadda cagta Bayern Munich lacag dhan 25 milyan balse waxaad moodaa in uu la dagay daawac iyo soo kale waxa soo kale la dagay cudurka halista COVID-19 tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool Jurgen Klopp ayaa sheegay in xaaladda ciyaaryahan Thiago Alcantara iminka ay tahay mid wanaagsan la filayaa inuu dib ugu soo laabto garooma maalmaha soo socda balse muusan sheegin waqtiga rasmi ah ugu soo laaban doono garoonka iyo waliba tababarka buuca kooxda kubadda cagta Reds ayaa si lama filaan u baysay kooxda kubadda cagta Leicester 3-0 dhan kale taageerayaasha mooda inay dib ugu soo laaban doonaan garoomada siba horyaalka Premier League waxaan loo baahayaa in garoonkii ay soo cadiraan 4,000 ilaa 2,000 taageerayaal tani ayaa soo kale waxay farad weyn u tahay taageerayaasha horyaalka Premier League tani waxaan moodaa in markuu bilowday cudurka COVID-19 ama coronavirus la joojiyay in ay inta badan ay dadku isku yimaadaan ay kala fogaadaan si uusan u faafin cudurka halista COVID-19 tani ayaa sababtay in taageerayaasha ay iskaga joogaan gurigooda cagana ku daawadaan kubadda cagta tani ayaa waxaa inta badan soo dhaweey taageerayaasha kala duwan ee ku ah horyaalka Premier League iyo loo daawacan dhamaan qaarada Yurub macalinka kooxda kubadda cagta Arsenal Mikel Arteta mooda in caladiisa aysan fiicneen gudiga kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa waxay dheen u dulqaadamayno macallin Arteta iyo xaaladda iminka isku sugantay kooxda kubadda cagta The Gunners 5 kulan ayaad moodayn kooxda kubadda cagta Arsenal ay badisay 1 kulan oo clear tan runtii ma aan wax loo dulqaadan karo iyo waliba riyo kale aad moodaa inay ku hadlayaan boardka kooxda kubadda cagta The Gunners soo kale waxaad moodaa in Mikel Arteta uu sagna aysan ku faraxsan sida xaaladdu iminka ay tahay difaaca hore kooxda kubadda cagta Manchester United Rafael da Silva ayaa caawa dib ugu soo laabanaya garoonkiisa gurigiisa Old Trafford The Theatre of Dream isagoo caawa wajahi doona kooxdiisa hore ee Manchester United waana ciyaarahan iminka u ciyaara kooxda kubadda cagta Basaksehir Istanbul ka dhisan waana ciyaaryahan inta badan ay ku tashato kooxda kubadda cagta Real Istanbul aga difaaca diilaago kulanka Champions League ay kooxda kubadda cagta Manchester United u safreen aga iyo dalka Turkiga mooda in uu noqday ciyaaryahanka garoonka aad ayuu noo soo dhaamuqday ciyaartaasi gool ilaaliyaha labaad ee kooxda kubadda cagta Manchester United Henderson ayaa mooda inuusan ku faraxsaneen inuu keedka u fadhiyo macallin OGS wuxuuna sheegay inuu jeclaalahay inuu iska tago kooxda kubadda cagta Manchester United markale si Moha si uu helo kooxu ka helo boos joogtiya soo kale wuxuu soo raaciyay in uusan marnaba u dul qaadan karin in uu keedka fadhiyo balse laga yaabo kulanka caawa in Henderson uu u safto kooxda kubadda cagta United si xooggan national siiyo gool ilaaliyaha United ee kaalinta koowaad ee De Gea
kooxda kubadda cagta Inter iyo Real Madrid ayaad moodaa inay rabaan inay isdhaafsadaan labadan ciyaariyaan Eriksen iyo waliba ciyaariyaan Isco. Eriksen ayaad moodaa inuusan ku faraxsaneen iminka macalinka kooxda kubadda cagta Inter Milan Conte soo kaleetiya. Isco aad moodaa inuu isagana boos joogta ka helin kooxda kubadda cagta Los Blancos u horkacaya tababare Zinedine Zidane. wada hadalkan iyo arrintan ayaa soo baxday ayaa waxaa jirta in wali heshiis rasmi ah labada kooxood gaarin balse waxaa jiro wada hadal kale oo si hoose u socda say macquul shay waxa laga yaabaa Eriksen inuu aado kooxda kubadda cagta Real Madrid halka ayaan Isco isaguna ku biro kooxda kubadda cagta Inter Milan ee ka dhisan dalka Talyaaniga. xagga Champions League haddii aan eegno daawadayaal kooxda kubadda cagta Krasnodar waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta Sevilla ee ka tirsan dalka Isbaanishka saacada Afrikada markay tahay 8:55 daqiiqo. isla saacadaas waxaa soo kale dhex doono kulan dhexmari doono kooxda kubadda cagta Rennes oo soo dhaweyn doonto kooxda kubadda cagta Chelsea ka tirsan dalka Ingiriiska. kulamada kale ayaa moodaa inay dhex doonaan 11 habeenimo. kooxda kubadda cagta Dortmund ayaa waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta Club Brugge halka kooxda kubadda cagta Zenit ay u safri doonto dalka Talyaaniga ayna la kulmi doonto kooxda kubadda cagta Lazio. kooxda kubadda cagta Dynamo Kiev ayaa waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta Barcelona halka kooxda kubadda cagta Juventus ka tirsan magaalada Turin ay qaabili doonto kooxda kubadda cagta Ferencvaros. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxaa gurigooda ku soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta Istanbul halka PSG ay qaabili doonto kooxda kubadda cagta Leipzig. isla saacado waa 11 habeenimo. barnaamijkii sported kala socoteen ciyaaraha alla teestu aqyaaray waa nagayta aad iyo aad u mahadsantiin waqtigiina iyo sida uu wanaagsan aad ugu daawateen.